بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعاً dadka ka soo qayb galay xafladda tanqiimiga badan oo ay ugu horeeyaan culummada diinka, odayaasha dhaqanka, aqoon-yahanka, ganacsatada, dhalinyarada, siyaasiyiinta, haweenweynaha, bahda saxaafadda. dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib allah ayaa mahadle suuqayna keenay madashaan quruxda badan oo isla markaasna ujeedkeedu yahay wiilkeena oo qaaliya iyo gabarteena oo ka dhicino qaaliya inaan meherkeeda uga soo qayb qaadano oo maaragtay maanta aan marxaati ka naqano farxadda aan la qaybsano ujeedka aan sugunimo sidaas yahay allahna soo waafajiya ayaa mahadle. intaas kadib waxaan rabaa in muxuu ahaa xiriiryaha kuma khaldana inuu gabadha Caaisha Qaasin yiraahdo dhalinyaro invitada soo diyaarisa Caaisha Qaasin ku qoreen waxa waa mustawihi iyo magacii mashhuurka ahay oo gabadha aabaheed lagu yaqiino meesha laga saaray waa Caaisha Macalin Qaasin Sheekh Cabdi Cali waa gabadha magaceedu walow dadku qaraabo ay u badan yihiin wada og yihiin haddana in update la noqdo oo sidaas loola socdo oo dadku ay maaragtay wax walba ay shafaafiye naqdaan sidaas aan ula jeedaa. marka gabadha waa Caaisha Macalin Qaasin macalinkeena qaaliga oo jaliilka ayaa dhalay oo mar dhow naga dhintay allah u naxariistaan leena. intaas kadib haddii aan soo noqdo in madasha ujeedka aan meesha u soo istaagay waxaan rabaa dadka eelka meesha isugu yimid qaraabada ah diriska ah akhwaanka ah wax walba noo ah marti sharafka noo ah ee runtii aan saaka invita 2 saac inta ugu qornay haddoo 4 saac iyo sabti ay tahay madashii iyo gogashii noo bilaabatay waxaan rabaa inaan cudurdaar ka bixiyo arrintaas. waxay ila tahay qofka soo meherada iyo goobaha noocaan oo kale arooska tagto waxay xog ogaal u tahay in mar walba aroosyadu ay dib u dhacaan sababaha dib u dhacaas keenayna waxay tahay aroosku waxa waaye waa meel sharafeed waa meel qiimo badan waa meel tixgelin leh waa meel qof kasta mudnaanteeda iyo tixgelinteeda la siiyo u baahan. marka duruufaha noocaas oo ku xeeran ayaa waxa keenay dib u dhaca qof hebel maqan la'aanteen lama dhaqaaqi karo qof hebel maqan la'aanteen lama dhaqaaqi karo eedaa maqan adeera maqan abtiyaan naqana waqti qaadanayso iyo ahlu sharafka kale akhyaartii ee nabadoonnadii hogaamiyaashii qaybo kamida ayaa xaaladda adduunyada dhibka badan la soo xiriiraysa iyagoo madasha ka wacan marka dib u dhaca sidaas keenayso. marka dhammaantiin waxaan idinka codsaynaa inaan arrintaas noogu cudur daartiin raalli naga naqatiin maaragtay waa jecleen inaan waqtiga aan sheegno wax noogu qabsoomaan marka sababahaas kalifa aad u mahadsantiin waxaana jeclahay inaan naga aqbashin waana naga aqbashin aad u mahadsantiin. intaas kadib runtii maanta waa maalin farxadeed gabar qaaliya wiil qaaliya wiilkayga injineer Axmed Cali Indooy iyo Dictoresa Caaisha Macalin Qaasin meherkeeda u joognaa oo runtii wax badan inta maaragtay iska calmaday gabdhaha Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho joogo ayagoo ehela oo ilma adeera oo sotareera isla markaasna go'aansadeen inay guri wada dhistaan guri wada yagleeshaan isla markaasna iskaabulada ay faarujiyaan aad u mahadsan yihiin leenahay shaqadaas wanaagsan ay soo qabteen iyo meesha gunaanadka ay keeneen intaanu ehelo diris oo asxaaba inay farxadooda ka qayb qaataan ay sabab u noqdeen aad u mahadsan yihiin. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo waalidiinta labada dhinac ee runtii xafladda quruxda badan ee noo soo abaabushay oo inay saan wax u dhacaan sabab u ahaa oo ka wada qayb qaatay oo iskaashaday si maaragtay dood la'aan oo murun la'aan oo khilaaf la'aan gogashaan ku wada dhigay ayagana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mahad waxa ka gaartaan leenahay arrintaan inay saan u qabsoonto wax dhib yar maahan juhdi iyo waqtiga lagu bixiyo marka dadka noocaas ee nagala qayb qaatay aad u mahadsan yihiin. intaas kadib waxaan rabaa waqtigu waa nugu dheeryahay inaan hadal dheereeyo mar rabo waa idinku badiyay waxaan rabaa adinku aad u mahadsan madasha la isugu yimid ee meherka ah oo injineer Axmed Cali Indooy iyo Dictoresa Caaisha Macalin Qaasin madasha isugu nimidoo nikaaxeedu in lagu qabsoomo la rabo way noo furan tahay gabadha wiilka maanta aan u joogno meherkooda waa laba gabar iyo wiil ilma adeera oo abgaal ismaan isku ahartay abgaal ah gaabana maxamed agoonyar gaabana ah kadib markay agoonyar yimaadeen laba waday kala qaadayeen oo isla wadadii ehelnimada ah marka wiilkuna waa wiil maaragtay roob suga ah oo buraalo Muusa gabadhuna waa gabar cil agoonyar marka waxaan rabaa
dadka eelka meesha isugu mid ah asxaabta diriska xuquuqay leeyihiin waa inay ogaadaan maadaama meesha ay yimideen aysan dad iska yimido ayagoo xodogaal ahayn iska baacisayna u naqan marka madasha maanta u fadhino waa noocaas aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh